lagu tartamay gudoomiyaha golaha wakiilada oo ay ku tartamayeen Cabdiraxmaan Maxamed Taliyaale iyo Baasha Maxamed Faarax arinta iyada ah waxa jirtay xildhibaanadu iyagoon xisbina ahayn wax kale lahayn ayay iyagoo fikirkooda aaminsan walba wuxuu aqligiisu yahay baan u kala codaynay arintaasu waxay ku dhacday shalay waxa dhacay dambi crime baa dhacay dambi weyn ayaa dhacay tiradii oo 930 cod oo helay Cabdiraxmaan Maxamed Taliyaale oo aanu hayno markhaatiyadeedii oo aanu hayno iyadoo facta figurisa oo la tirinayo madaxka koow loo tirinayo oo la hayo wax allaala wixii muuqaal ahaa ee nool goluhu maaha sidii hore goluhu wuxuu leeyahay qalabkiisa ayaa waxa jira in dambi toos ah oo la galay dambi sharci ayaa la galay muhiimaddu ma aha iyadoo uu yahay Cabdiraxmaan Maxamed Taliyaale gudoomiyaha xaqa loo doortay ee golahan oo aanu aaminsanahay kuna taageersanahay haddana maxaa jira waa in la helaa dambigan cidda gashay lagu qaada haddii maalin walba cid dambiile alla korka laga marmarada adar qaranku wuu ku dumayay tan waxay horseed u tahay hadday ka gardaqsan weydo xukuumadda waxay horseed u tahay inaanay taweyna ka gardaqsanin wax lagu geli karo doorashada weyn oo lagu sii karana ma aha waxaan kaloo ka hadlayaa xukuumaddu beesha sool iyo sanaag beesha waxay siisay gudoomiyaha baa nuu qorshayn xukuumad iyo gol ahaan iyo shacab ahaanba way nuu qorshayn iyadoo sidaa loogu qorsheeyey xukuumaddu waxay bilowday inay iska horkeento beelihii gobolka digala ee ku tartamayey kursigaa kuwii kulmiye iska horkeentay oo maanta laba kala ah isla beesha gudeeda waxay haddii loo gartay in goluhu si xalaal ah ay ugu kala baxaan oo laga daayay faragelinta marka hore number 1 oo goluhu ay ku kala baxaan nimanka maadeerka ay golaha kala baxaan may sameyn xukuumaddu iyadoo waxeedii la soo baxday way kala qaybisay wayna faragelisay khaladka shalay taagnaa inanka xogayaa ay sameeyeen ka gaban maayo anigu inanka xogayaa ay sameeyay dambigiisa wuu leeyahay cadayntiina wuu leeyahay oo loo hayaa walaahi baan looga haray maxkamad haddii niman yahow maalin walba waxa doorasho xisbigan qabto intii dawladda ay haysato wax ugu horsay dawladda hoose ilaahay baa ina badbaadiyo wada ogeydi 770 ka xildhibaan haddii ay xukuumaddaas ka gar qaadan weydo ta kale ka gar qaadan mise wixii laga yeelay ayaa diyaar loo yahay iminkan waxa ku soo gabagabaynayaa wixii meesha ka dhacay gudoomiyihii horta xaq ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Taliyaale dambigii meesha ka dhacay cidiilana waa laga maarmaan in wax laga qabto xukuumadduna waa inay ka gar naqsataa wax cad weeye waxaanu haynaa facta figures weeye